saldhigga booliiska degmada Buurtile Saad Cabdi Kortuna warbaahinta kula hadlay saldhigga booliiska degmada Buurtile ayaa waxa uu ka hadlay falal amni darro ay sameeyaan dhalinyarada ku nool magaalada Buurtile. Howlgallada ay sameeyeen ciidamada waxay ku soo qabteen dhalinyaro ku howlanaa qalqalgelinta ammaanka iyo kuwa timaha u jaranaya si ka baxsan diinteena islaamka iyo dhaqankeena wanaagsan. dhanka kale taliyaha saldhigga booliiska degmada Buurtile Saad Cabdi Kortuna waxa uu ka hadlay dhalinyaro koox u socoto masaajidada ka xadaya moobilada marka salaada la galo waxayna sameynayaan inay ka hoos qaadaan moobilka inta sujuudda ku maqan tahay. sidoo kale dhalinyarada ku nool magaalada Buurtile ayaa waxay soo kordhiyeen tuugnimo cusub oo ah in gawaarida xamuulka ay kala degaan raashinka iyo agabyada kala wada gaariga isagoo soconaya. taliyaha saldhigga booliiska degmada Buurtile Saad Cabdi Kortuna ayaa waalidiinta dhalay dhalinyarada ugu baaqay inay ka warhayaan dhaqdhaqaaqa iyo waxyaabaha ay qabanayaan carruurtooda inta ay ka maqan yihiin guryaha. waxaan ku niri war ciyaalka waalidow ilmaha dhashay adigana asagana khasaarin oo laba khasaaro ha sameyn labada khasaaro maxay ilmaha ruuxa dhashay oo lacagta fiiga aad bixinaysa oo iskuulkii aad u dilaysay oo iskuulkana aad ahayn baabuurtii laamiga haysay dhacayo xadahay oo magaalada dhexdeeda soo tagayo oo khamaar ku dheelayo laaduu ku dheelayo lacag kala qaadanayo lacagta adugu aad soo siinaysa ku ciyaaray oo guriyihii u dhacayo oo guriyihii jabsanaya inta bilis markuu soo qabto iyagoo soconaya ugu imaanayaan waxay leeyihiin ilmahayga dambi ma gelin adeer ugu ilmaha riyaalo iyo bilis uu nasiiyo waa dadkii aad la shaqaynaysay oo aad ka doonaysay informationka iyo waaridkii iyo odayaasha iyo waxgaradka waxaad ku khasban tahay markaad in badan diidid in qaarkood inaad u jiracsanaatid oo aad siisid waana dhibaato oo dambiyo ilmaheena naftooda uu ku dhibaataynayo asageena isku dhibaataynayo isku khasaarinayo. waxaan leenahay waalidiinta arrintaas waa qof walba cid wax u qabanaya shakhsiyadaada iyo ilmahaaga ka warqab. hadda waxay soo baxday in moobiladii iyadoo la tukanayo iday soo galaan masaajidada alla caysado oo ay soo dhacaan moobiladii meelaha ay ka gadanayaan waad ogtiin ayagu ay gadanayaan ilmahaaga adigu moobil uma aadan badin inuu soo xaday moobilka qaaliga ah oo anugu ma aanan wadan oo cid wadataan la arag ganacsi waa weyn ma ahana dhaqaale haysatee iyo waad garan ka dhacdaan tuugahay waxa weeye ilmahaaga inaad moobilka ka qabatid aad tiraahdo riyaxa gabadh ka keen marka waxaad tiraahdo controlka aad saaran waa yaraanaysaa ciyaalka wax qaadashadooda iyo tuugadooda. muddooyinka ugu dambeeyay magaalada Buurtile ciidamada ammaanka waxay wadeen howlgallo kala duwan ay kula dagaalamayaan dhalinyarada sameynaya falalka amniga lidiga ku ah.